tiraba ugu yaraan 50 qof ayaa ku dhimatay kadib markii gaari weyn oo nooca shidaalka qaada uu ku dhacay gaadhi kale oo marayay waddo weyn oo marta galbeedka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Shilka ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada Kisantu oo u dhaxaysa magaalo madaxda dalkaas Kinshasa iyo dekedda Matadi. Atomatabuana oo ah gudoomiyaha gobol ku yaala bartamaha wadankaasi Congo oo ka hadlayay raadiyo ay jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa leedahay ayaa sheegay in dad gaaraya 100 qof ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan. waxaana uu yiri holacii dadka ayaa si dhaqso ah ugu faafay guryihii goobta ka agdhowaa. qof goob jooga ayaa wakaaladaha wararka u sheegay inuu arkay meedadka dad gaaraya tiraba ilaa iyo 350 qof kuwa soo gubtay. dhakhtarka lagu magacaabo Tresor oo ku sugan cisbitaal u dhow halka uu shilku ka dhacay oo daweynaya dadka dhibanayaasha ah ayaa sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii ay u daweyn lahaayeen dadkii shilkaasi ka badbaaday. waxaana uu yiri waxaanu isku dayaynaa inaanu dadkaasi caawino oo aan jidhkooda biyo la gaarno, balse nasiib darro weli waxaa jira buu yiri qaasi dhimanaya doctorku. Master Matabuana ayaa sheegay in mas'uuliyiinta deegaanku ay qaadeen tallaabooyinkii ay kula wareegi lahaayeen mas'uuliyadda dhammaan dadkii dhibku soo gaaray. magaalada lagu magacaabo Kisantu waxay tiraba 120 kiiloomitir oo u dhiganta 75 mayl koonfur galbeed kaga beegan tahay magaalada Kinshasa ee caasimadda wadankaasi ee Congo. Madaxa booliiska caalamiga ah ee Interpol ayaa la waayay xilli uu ku sugnaa wadankaasi Shiinaha. wararka qaar waxa ay sheegayaan in xabsiga loo taxaabay markii uu ka degay garoon diyaaradeed oo ku yaala wadankaasi Shiinaha. Mr. Meng Hogwi ayaa loo magacaabay madaxa booliiska caalamiga ah ee fadhigeedu yahay wadankaasi Faransiiska 2 sano ka hor taasoo muran badan dhalisay. xaaskiisa ayaa ku wargelisay booliiska magaalada Lyon markii ay wax war ah ka weyday socdaal uu ku tagay wadankaasi Shiinaha bishii hore dabayaaqadeedii. warbaahinta qaarkeed ayaa sheegay in loo qabtay si su'aalo loo weydiiyo, waxaana ay sheegeen in ay qabteen laanta anshaxa ee wadankaasi Shiinuhu taasoo ah magac gaar ah oo ay leedahay waaxda baaritaanka ee xisbiga shuuciga ah ee talada dalkaasi wadanka Shiinaha haya. warbixinta ay soo saartay Interpol ayaa lagu sheegay in arrinta murugsan ee Meng Hogwi ay tahay mid walaaceeda leh oo ay doonayaan bay yiraahdeen inay wax kaga qabtaan cidda ay khusayso oo ah dawladaha wadamada Shiinaha iyo Faransiiska. arrin cusub maaha in qof magac leh oo xil weyn haya la waayo isaga oo jooga wadankaasi Shiinaha, balse toddobaadkii la soo dhaafay ayaa jilaaga ugu caansan ee dalkaasi oo lagu magacaabo Fan Benin lagu helay dambi musuqmaasuq cashuur bixin la'aana kadib markii la la'aan ninkaasi muddo 3 bilood ah. Siciid Axmed Tamreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star, Burco.